بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إن شاء الله تعالى وبإذن الله الكريم وعشر كيلوات درسي نوغس على كتابك ما تحديث للحفظ وكتابك يرى ما تحديث كأها إن شاء الله تعالى وحنوجو حديثك أفراد وأنا كبلا بنا عشرك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. أبا هريرة لقوريي وعبد الرحمن بن الصقر الدوسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله رسولك الله صلى الله عليه وسلم قال نبي وحيري إن العبد أدونك ليتكلم وحكوهد لا بالكلمة كلمة كوهد لا نبي صلى الله عليه وسلم كلمة سوما يتبين أنك لعديسن فيها في الكلمة kelimada gudaheeda una u kala fiirsanin ma qeyr bay usoo jiidaysaa mise shar, ma qeyr bay u wadaa mise shar, una u kala fiirsanin. yazilu wuu degaa bihaa sababteeda fi naari naarta gudaheedu ku degaa abcada maa shay wax ka fogaan badan bayna almashriqi qorax ka soo bax iyo walmaqribi qorax u dhac. xadiidkaa marka u fiirsada abaa hurayra xadiidkaa laga wariyey radia allahu tacaala canhu, oo macnaha xadiidka uu yahay addoonka muslimka ah mu'minka ah hadalkiisa waa inuu miisaan iyo control uu saaran yahay. haddii uu qeyr ugu jirana waa inuu ku hadlaa, haddii shar ugu jirana waa inuu ka aamusaa. nabiga sala allahu calayhi wasalam xadiid kale, man kaana yu'minu billahi walyawmi alaakhir falyaqul khayran ow layasmud buu yihi nabiga sala allahu calayhi wasalam. qofkii ilaahay maalinta qiyaama rumeeyey kheyr ha ku hadlo ama waxa weeye ha iska aamuso, saasuu nabiga leeyahay. marka xadiidka waxa weeye ina alcabda addoonka liyatakalamu wuxuu ku hadlaa bilkelimati kelimu ku hadlaa, waa hadal kooban oo afka mar laga yiri ama carabka mar kasoo baxay, taasoo maa yatabayana una kala cadaysanin fiiha gudaheeda una u kala fiirsanin aw min sharin aw min khayrin, ma shar bay kuu keeni mise kheyr. yazilu markaasuu degaa bihaa sababteeda fi naari naarta gudaheeda abcada maa shay wax ka fogaan badan bayna almashriqi qorax ka soo bax iyo walmaqribi qorax u dhac, saasuu nabiga leeyahay sala allahu calayhi wasalam. xadiidka marka waa muttafaqun calayhi, bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay. xadiidka shanaad can abi hurayra laga wariyey, konton xadiid waa kitaabka noo keeni doona oo abaa hurayra ah radia allahu tacaala canhu wa ardaah ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka alle naxariis iyo nabadgelyo nabiga dushiisa allaha yeelay qaala nabiga wuxuu yihi ina allaha alle yugaaru wuu maseeraa, ilaahay wuu maseeraa subxaanahu watacaala. waghayratu llahi ilaahay masiirkiisana an ya'tiya almu'minu qofka mu'minka oo ilaahay rumeeyey inuu la imaado way maa xarama allah ilaahay wuxuu ka xarimay. ilahay wuxuu ka maseeraa addoonkiisa mu'minka ah, wuxuu ka xarimay uu ka xaaraantilmay in uu la yimaado macaasi uu sameeyo, ilaahay uu ka maseeraa, wuu ka qiiroodaa subxaanahu watacaala. maseerka waa sifo ilaahay sifaadkiisa ka mid ah. nabi maxamed waana ku tilmaamay sala allahu calayhi wasalam, siduu ugu tilmaamay waa inaan ugu sheegnaa anagoon tashbiihinaynin, ta'wiilinaynin, tamhiilinaynin, tacdiilinaynin. in la diido iyo in la shubaho iyo in la mithaaliyo waxaasoo dhanba lama ogolo, in la ta'wiiliyo waxaasoo dhan lama ogolo. waa sifo ilaahay sifaadkiisa ka mid a, wax anaga aan garan karna maahan. waxaan leenahay waa si asiga u qalanto, waa si asiga u qalanto. waxa waaye ilaahay subxaanahu watacaala laa nashabahu khalqan min khalqi illahi ama axadu min makhluuqaatihi ku shabihi mayno. marka waxa waaye waa inuu qofka sida uu u qiro, sida caqiidada salaf saalixna waa sidaas. ilahay subxana wataala maadaamaan la aqoonin ilahay subxana wataala daatadiisa baan sifaadkiisana loo aqoonin, wuxuu asiga isku sheegay nabigiisa uu sheegay sala allahu calayhi wasalam ka sugnaatay waa inaad u sugtay. sidaasaa caqiidada waxa waaye saliimta ay tahay way. ina allaha ilaahay yugaaru waa maseeraa buu nabigu yihi sala allahu calayhi wasalam. wagayrat llah ilaahay maseerkiisana an ya'tiya almu'minu qofka mu'minka oo ilaahay rumeeyey inuu la imaado way maa xarama allah wuxuu ilaahay subxaanahu watacaala uu ka xarimay inuu la imaado way. ilaahay wuu ka maseeraa, aad buu oga maseeraa subxaanahu watacaala. nabigana sidaas uu ku sheegay sala allahu calayhi wasalam. xadiidkana waa muttafaqun calayhi, bukhaari iyo muslim baa xadiidkaas ku waafaqay. xadiidka lixaad waxa weeye abaa hurayra laga wariyey waa cabdiraxmaan binu saqri addowsi ana rasuula allahi rasuulka alle sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yihi nabiga, man qofka qaama istaaga ramadaana bisha ramadaan waa bisha soomkee iimaanan rumaysnaan alla uu rumaysan yahay subxaanahu watacaala, qalbigiisa uu ku degan yahay iimaan saxiixa iyo waxtisaaban ajir xisaabsi, ilahay uu ka ajir xisaabsanayo waxa uu sameynayo, ilaahay subxana wa tacala ajir uu kaga doonaayo. cidna waxa ogama doonayo, weji ogama doonaayo, xoolo adduun ku dooni maayo,
magac ku dooni maayo, ilaahay subxaana wa tacaala buu ajir kaga rabaa. qofka labadaa shuruudood darteed u istaaga rumayn oo ilaahay rumaysan yahay, haddii iimaan la waayo camal meesha waxba uma yaalo. haddii ixtisaab la waayo, ikhlaas haddii la waayana sidoo kale camalka waxyaabaha camalka lagu aqbalay ka mid tahay waxa weeye al-ikhlaasu al-iimaanu billah iyo wal-ikhlaas, ilaahay in la rumeeyo iyo ikhlaas, ilaahay dartii waa in loo sameeyo. ilaahay subxana wa taala qur-aanka waxaa weeye wamaa umiruu ilaa liyacbudullaha mukhlisiina lahu diin buu ilaahay subxana wa taala qur-aanku leeyahy. marka waxaan ilaahay dartiis aan ahayn ilaahay ma aqbalo subxaanahu wa tacaala. waxaan iimaan iyo rumaysnaan iyo ilaahay ictiqaad ilaahay qalbiga waxa waye looga ictiqaadsanayna ilaahay ma aqbalo. inama alacmaalu binniyaati, marka niyooyinkay ka ahaatay. iimaanan rumayn iyo waxtisaaban ajir xisaabsi, gufira waa la dhaafaa lahu kaas maa taqadama wixii hormaray oo min dembihi dembigiisa ah waa loo dhaafaa buu yihi nabiga sala allahu calayhi wasalam. marka xadiidka wuxuu tilmaamayaa in dunuubta lagu dhaafo istaaga qiyaamka la istaago bisha ramadaan. taraawiix ku sheeg ama tahajud ku sheeg ama qiyaamuleil ku sheeg. taraawiixdu waa salaada la tukado cishaha kadib, salaadaha la tukado oo sunnaha ah, xukun ahaan waa sunne. tahajudkana waxaa lagu magacaabaa salaada bacdu listiiqaad min annoom dhacdo. intaba qiyaamuleil baa la iska yirahdaaye, intaasba waxa uu qofkii sameeya ilaahay dartiina u sameeya, ixtisaabna ay ka tahay ilaahay subxana wa taala dembigiisa u dhaafaa. dunuubta la dhaafaa waa kuwa lalamka ah, kuwa yaryarka waxa waye dunuubtaada yaryarkaa la dhaafaa, sida ilaahay aladiina yajtanibuuna alkabaa'ir alithma walfawaaxish ila lamam, dembiyada yaryarkaa way dunuubtaada lagu dhaafaa. can abi hurayrata radi allahu tacala canhu ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaala, nabiga wuxuu yihi naxariis iyo nabadgelyo dushiisa allah yeele, man qofka qaama istaaga ramadaana bisha ramadaan qofka istaago iimaanan rumaysnaan ilaahay uu rumaysan yahay, waxtisaaban iyo ajir xisaabsi ilaahay uu ka ajir xisaabsanaya subxaanahu wa tacaala, gufira waa la dhaafaa lahu kaas maa taqadama wixii hormaray oo min dembihi dembigiisa ah waa ilaahay subxaanahu wa tacaala u dhaafaya. xadiidkan waa muttafaqun calayhi. marka insha allah saddex xadiid baan ku wadi doonaa. xadiidkaas saddexaad baan kusoo gaabinaynaa insha allahu tacaala darsigeena xiga baan hadduu ilaahay subxaanahu wa tacaala na waafajiyo. hada wabillahi tawfiiq wallahu aclam. subxaanaka allahuma bixamdika nashhadu an laa ilaha illa anta nastagfiruka wanatuubu ilayk.